Sheekh Xasan Barsane anigu form 3 ah baan waxaan helay shaqo macalinimo ah oo temporary ah oo UNESCO ahaan jirtay waa doorashadii 16 ka bacdi markii la soo doortay Allahu naxariistay Saciid Cabdur baa wuxuu noqday wasiir ku xigeenka waxbarashada waxa jiray wadiyabisa aniga iyo 3 nin oo biliis ahaa محمد عبد الله بعدله lagu jiray wasiirkii arrimaha gudaha oo dhimanay baan lagu jiray aniga iyo bacadle iyo gabar ma kala oran jiray wayna abgaalahayd oo bili yani kal jar dad biliis ay lahaayeen iyo aniga iyo nin kale nis ceeroolay shantayadaas baa waxana la qoray macallimiin temporary oo UNESCO lacagsi 3 bilood ba mar la helaa iskuulka ku dhameystay hay iskuulka ku dhameystay brilliant nin hadda life haysto waxaysta halkaas waxaan markaan iskuulkii dhameeyay macallin rasmi ah la qaatay $420 baa la shilin baa la qaataa waxa la geeyay macallin jaamac kalaasiya middle school ayaa waxa la yiri xisaabta mudug iyo sayniska waxa ila jooga dulqarneen waa taqaan Soomaa Faisal baa iskuulka ka jooga isna wax ka dhiga adigu iskuulkii ala kulli xaal farsamo sameeyay ninkii la oran jiray aadan maxad cali oo regional education officer baa waxaan ku yiriniyo iga soo iskuulka iga soo bedel xafiiskaaga iga bedel waa 71 way markaas iskuulkii soo bedelay waxaan xogayan u noqday aftiriyana marka wax lagu qoraa aadanna waa af carabi marka warqadaha caadi habeenkii waxyaalahaas galabtii u gargaraaca aadan baan la joogay ilaa 72 ciidamada galay Ruusiya tagay 3 sano soo joogay mardan misla ku laabtay waxa la oran jiray afkar rawshka Bisbijaniya Balyotov bay dhigi jireen waxa la leh wixii logistics ah oo marka hore waxay ahayd diyaaradaha ay ahayd markii dambeynatana waxay raashinkii dharkii wixii ala kulli xaal barajaha ka bacdi waxa noqday sarkaal logistics ah noqday waxaanu soo noqonay 74 I think is 75 ila burburkii waxaan ka shaqeynaa hoggaanka saadka meel badan baa ka shaqeey markii intii mainly waxaan u badnaa xamar markaan u fogaaday waxaan tagay Baladogle darajada markii waxay igu dhacday gaashaan la sarsiin yara ayay igu dhacday intii burburkiina waxaan ka mid noqday dadkii u horeeyay oo qurbaha aaday talyaanigan 2 sano joogay ka bacdina Mareykanka galay xaaladdu waa adkaatay aniga Englishkaygu waa very poor aftilaana wax ku bartay laakiin Latinkaas waa iskaabayaayo qofkii mid yaqaan midka kale si uun buu maartay mahma waxa jiri jirtay bar imbarar Ingiriisi ajunjir ing baa isku dabaytir ay jiray manjaring starring qurbe waa ka taqaana qofku marka oo horeysa uu tago integration buu baahan yahay laba waxyaalood ba essential inuu helo qofkaas uu driving license inuu helo waa waxa ugu weyn iyo baabuur inuu helo okay aniga marka goolkaygu waxa way labadaas inaan helo shaqadu marka choice ma laha waxa yeelay xaafad baan deganay downtown-ka ayaa sare dhaadheer 35 biyaana ah baa waxa laga tuura qashinka marka rag iyo dumarku waa soo tuurtura waa soo bacteria nimanka iyaguna waa tuuraa qashinkaas la tuuraa janitorkaas qashinkaas waxaan ka shaqeynayay 3 bilood
taargetkayguna wuxuu ahaa $3,000 $3,000 baan helay testi baan tegey laysanka baan soo qaatay baabuur master 626 la oran jiray oo tii ugu horeysay baan soo gatay shaqadii waxaan maca salaama markaasaan search bilaabay inaan shaqo raadsado shaqa line baan helay meel helay iska $10 meelahaas 15 minutes 18 minutes driver waa shaqadii baan ka shaqaynayay markaas goolkii labaad baan markaa raadiyay goolkii labaad marka iskuulina aado jaamacadda Hamlin baan aaday wixii aan haysanay ayaa loo qiimeeyay Hamlin baan aadnay dhowr baan ahayn rag badan saddex afar aan ahayn Hamlin baan tagnay wax ka loo ESL baa ka loo jiidan ka bacdina iskuuladii public schoolka baan waxaan ka helay teacher 8 kii baan xogaa ka shaqeeyay 3 sano ka shaqeeyay disadvantage buu lahaayo teacher 8 ku waxa way 3 bilood isku xiran yahay male mushaar male ha marka waxana ma dhigayd kartid waxa la furay school charter school oo mainly Soomaalidu leedahay oo raga aan isnaqaan marka furan cusub yihiin qoladii iskuulka markaas charterka furtay baa waxa la inagu soo birniyo meeshaan uu kicina koobde mustaqbalka barsi una annagana waxay noo tahay maaragtay boost qoladii baan ku biiray iskuul baan ka shaqeynayay tijaarada coordinator baan ka noqday adigu muddaan adigu iskuulkaas waxaan ka shaqeynayay 2 sano public school ah iyo 16 sano ayaan ka shaqeynayay Abdullahi baan noogu yimi mar dambe Abdullahi Xasan wasiirka waxbarashada baan noogu yimi mar dambe isagu noogu yimi iskuulkaas waa ka soo ritaar garay 2400 baan ka qaataa bishi halkana way joogtaa February 16keedii adigu halkaan imi electionkii waxaas ka bacdi waan noqday madaxweynaha markaas oo la doortay saragnay waa salaanay anigu waxaan ku yiri daniiho qurbaha san jira nin gaajo ariisana maahay mushaar fiican baan qaataa xafiis dawladeed baan leeyahay baabuur dawladna waa wataa mushaar ma taqaan fiican waa qaataa laakiin waa jeclaan lahaa inaan wadanka maartay ka soo noqdo waxaas aan kala waray inuu yiri anigoo bareeka jooga baa la magacaabay intaan hadda wadanka joogana 2 sano ee barkaas adigu oday meelaha jooga baan ahaa ninba waxba ku taamaya waxaan ku taamaya aniga 70 jir baan waxaan ku taamaya legacy waxuna oo lagu xusuusto inaan ka tago dekadii Boosaasood runtii waa aad bay noogu daahday aad baa dhibaatooyin badan uga soo maray laakiin hadda waxaan rajaynaynaa 3 bilood oo soo socotay wax dhaqaaqaan dekadii Garacad Milfacb maraysa waxaan rajaynayaa marka ilaahayna ka baryaaya at the end of my term labadaas dekedood oo shaqaynaya oo functional ah oo aad u fiican inaan noqdo oday reer Puntland oo tusbaxayga qaato oo magaalada dhinac ka digo ayaan ilaahay ka rajaynayaa aad baa maasha Allah